بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. مؤسسة أم القرى تقدم. waxaa inoo soo gabagaboobay oo si nabad ah noogu soo dhamaaday imtixaankii nihaa'iga ahaa ama kama dambaysta ahaa ee maadada quraanka kariimka ah oo aan ka qaadnay ardada qaybta quraanka kariimka ah ee mu'assasada Ummul Qura ee ad-Dakhiliya. maanta ayuu si nabad ah alxamdulillah inoogu soo dhamaaday. ilaahay ayaa mahad iska leh. thumma waxaan u mahad celinayaa maamul ku-xigeenka qaybta dugsiga Ustaad Aadam Cusmaan ahna madaxa guddigii imtixaanaadkaas ardada laga qaaday u madaxda ahaa oo runtii waqti iyo juhdi dheeraad aad u geliyay. waxaan leeyahay jazakallahu khayran. shaqo qurux badan ayaad mu'assasada iyo qaybta quraanka baad u qabatay, waan kaga mahad celinaynaa. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa macallimiintii ardadaas ku soo dadaashay, wax soo bartay, ee soo barbaarisay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa waalidiintii runtii garabka iyo gaashaanka u ahaa ardadaasina garabka soo siiyey, ardadaasi ku soo dadaalay, soo barbaariyey. runtii ayagana waxaan leeyahay mirihiina ayaan maanta aragnaa. wajazaakumullahu khayran dhammaantiinba, maamul, macallin iyo arday dhammaantoodba waxaan leenahay ardadaasi maanta waxa ka muuqdo waa juhdi iyo dadaal la geliyey, ma aha wax kaligood ay iska keensadeen. sidoo kale ardada waxaan kula dardaarmayaa insha Allah tacaala inay dadaalaan, anigoo u rajeynayo imtixaankana inay guul insha Allah tacaala ay ka keenaan iyo maadooyin iyo insha Allah tacaala darajooyin sarsare insha Allah tacaala u rajeynaya ardada inay ka keenaan imtixaankan. imtixaanada kalena si ay u sii wanaagsanaadaan insha Allah tacaala waxaan leeyahay dadaala, macallimiintiina kaashada, maamulkiina kaashada, guul adduun iyo aakhira ayaan idin rajeynayaa insha Allah tacaala. wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.